haweeney dhalinyaro ah taasoo bixin weysa cashuurtii xadgudubka gaadiidka ay geysatay ayaa waxaa lagu xukumay 100 saacadood oo ah oo adeega bulshada. ciqaabteeda waxaa ka mid ah in waqtigeeda ugu badan ay la qaadato muwaadiniinta da'da ah. maalintan khaaska ah waxaa loo sheegay waqtigeeda inay la qaadato oday keligiis noolaa. waxaa sidoo kale loo sheegay odagani inay xaaskiisa sanado badan ka hor dhimatay laakiin uusan ka kabsoomin. gurigiisa ayay soo gashay, way isa salaameen, wuxuuna u sheegay inay fariisato. way fariisatay, odagiina wuxuu bilaabay inuu hadlo. wax walba ayuu uga sheekeeyey. wuxuu uga sheekeeyey shaqadii uu ka shaqayn jiray, wadamadii u safray iyo waxyaabihii markii yaraa u aruursaday. gabadha isla markiiba waxaad moodaa inay istamisay. sheekadan waxba kuma aysan soo daraynin. way caajistay, waxayna bilowday inay iska dhaga tirto. xoogaa yar kadib taleefankeeda ayay soo saaratay, waxayna bilowday asxaabteeda inay maaseejo korto. waxay rabto waqtiga inay lumiso, markaasna uu waxaana iska dhammaado. asxaabteeda say u raacdo meel un ayay rabtay inay iska aado. hal mar ayay waxay go'aansatay inay dhegaysato, kadibna waxay maqashay inuu maanta dhan ka hadlayay xaaskiisa. markaasna waxay istiri maadaama uu waayeel yahay wuu ilaaway inay dhimatay. saas darteed waxay go'aansatay inay sheekada iskaba sii dhegaysato. wuxuu ka sheekeeyey in xaaskiisa ay 2 shaqo ka shaqayso, markaasna waqtiga ugu badan isaga iyo carruurta ay ku qaadato. taasi murugo ayay ku beertay isaga, wuxuuna rajayn lahaa inay mar hesho jaanis ee nolosheeda gaarka ah ku noolaan karto. ugu dambeyn gabadhii sheekadan la yaab kale way dhibsatay, markaasna waxay go'aansatay inay soo afjarto. waxay u sheegtay in xaaskiisa dhimatay sanado badan ka hor, uuna u baahan yahay inuu waxa iska daayo, waxayna u qabtay inuu nixi doono. arrinta la yaab kale waxay ahayd inuu markaasi keliyaato yidhi, alamaya xaaskayga way nooshahay, maantoo dhanna xaggan ayay nala joogtay wayna dhegaysanaysay. kadibna wuxuu eegay qolka dhinaciisa kale. gabadhani arrinta uma aysan bogin, kadibna waxay istiri muxuu sheegayaa. xoogaa kadib waxay eegtay dhinacuu eegayey. markii ay si fiican u fiirisayna mugdigiiba waxaa ka soo dhex baxay qof markaasi fadhiyey oo maantoo dhan joogay. waxa meesha fadhiyey waxay ahayd islaan waayeel ah, balse waxay u egtahay inay muddo badan markaasi ay meyd ahayd. way aamini weyse waxay arkaysay, kadibna si tartiiba ayay uga kacday kursigii, waxayna u dhaqaaqday dhinaceeda ayadoo rabta inay hubsato. waxaani macquul ma ahan ayay istiri. way u soo dhawaatay iyadoo isdhahaysa fiiri inay nooshahay in kale. markaasna si kadisa ayaa islaanta indhaha u kala furtay. gabadhiina gacanta ayay qabatay, afka ayayna si xooga u kala fudhay. gabadhii waxay isku dayday inay ka baxsato, balse way baxsan weysay. islaantii markaasi waxay soo daysay waxyaabo madmadow ayadoo markaasi gabadhii afkeedii kala furnaa galaya. gabadhii way miirdaboolantay. markii ay soo kacdayna waxay aragtay jirkeeda hore oo meesha yaala. kadibna way dhowlacadaysay, waxayna u dhaqaaqday dhinacii ninkeeda. markii ugu dambeeyeyna ayay habsiisay. gurigii way ka baxday. ugu dambeyn xor ayay ahayd. xor ayayna u ahayd inay markaasi ku noolaato noloshii ay weligeed rabtay.